waxaan la yaabaa anigu mararka qaarkood indhahay ku dhacaan qof ilaahay baryaya haddana wax kale ku dhex jira waana ducaysanaya maalan saas uu ducaysanaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مدبو سلام يا وكان هذه من دعاء سنة مثبتك لك دحجرتها حتى علماء waxay yiraahdaan marka ilaahay la bariyo gacmaha waxa fiican inaan saala dhihin in la isku dhijiyaa fiican oo sida in wax lagu ridayo oo kale in sida la yiraahdaa fiican bay dhahay maxay sii tusinaysaa marka saa tahay marka saa qofku yahay muuqaalka teeba baahi si adag sawiraysa wali tana si sawiraysa si wax lagu ridayo oo kale inaan saa tiraahdo ilaahay xaqiisa u rajay subhanahu wa ta'ala baridi meel kale iyo cid kale qalbigaaga ka mashquul waayo rasuulku muxuu tilmaamayaa ilaahay ma aqbalo duco qof ilaahay ducaysanaya qalbigiisuna maqan yahay ma aqbalo ducada caynkaas oo kale marka iska ilaali markaad ilaahay baryayso nabigu wuxuu laysa shay'un akrama ala allahi min ad-du'a ilaahay ma jiro shay kaga maamuus badan oo ka jecel yahay inaad barido oo wax weydiisato Allah subhanahu wa ta'ala markasto ogow aad Allah barido wax weydiisato ilaahay waad karaameysay subhanahu wa ta'ala waadan ducadii meel kale ula kicin awliyo iyo jiman iyo sida saalixiin iyo cid kale hadaadan bariyo isaga barido ilaahay waad karaameysay subhanahu wa ta'ala sida awgeed baa ducadu saddex bay noqotaa markaad ilaahay barido saddex bay noqotaa haday ducadaadu quman tahay in ilaahay ducadaadii durtaba kuu soo dedejiyo oo ku siiyo oo sidii aad rabtay Allah kaaga dhigo inuu ilaahay ku kaydiyo aakhirada tadambaa darane ilaahay inuu kayd baxsasho iyo badbaado aad berito wad ku baxsato ku badbaado inuu ilaahay aakhira kaaga dhigo ku kaydiyo ducadaadii iyo in ilaahay bala kugu soo socoto aadan ogeyn uu kaaga duway subhanahu wa ta'ala adu iminka mid ku haysataad ilaahay ka baryaysa inuu ka dulqaado mid kugu soo foogan oo aadan ogeyn ba ilaahay kaaga duway subhanahu wa ta'ala oo tan haday aad haysato kugu iman lahayd dib ku keeni lahayd